September 10-keedii 2012 waxaa baarlamaanka Soomaaliya ii doorteen madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa la igu wareejiyay dal sabool ah, dowlad federaal ah oo aan banaadir dhaafsiisnayn, dowlad caasimadeeda in ka badan 60 isbaaro ay taalo, dal inta badan argagixisada ay haysato, dowlad aan miisaaniyad iyo bangi dhexe oo shaqeeya aan lahayn, dowlad aan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn inta badan caalamka, dowlad aanay u dhisnayn hay-adihii dawliga ahaa, dowlad aan lahayn shaqaalo rayida oo diiwaan gashan, dowlad ay wax kasta oo dowladu u baahnayd ka maqan yihiin. caqabadihii hor yaallay way badnaayeen. waxaanse diiradda saaray inaan dowladnimada hoos ka soo dhisno, annagoo shaqada siday u kala muhiimsan tahay u kala hormarinaynay. waxaan ku dhaqaaqnay fulinta heshiiskii bulsho ee ahaa hirgelinta nidaamka federaalka ah. waxaan ku guulaysanay xoraynta gobollo badan oo argagixisadu ay haysatay. waxaan qaadnay isbaarooyinkii caasimadda dhex yiillay. waxaan diiwaan gelinay shaqaalihii rayidka ahaa. waxaan dib u howlgelinay hay-adihii maaliyadda sida bangiga dhexe. waxaan dejinnay miisaaniyaddii qaranka. waxaan dardar gelinay wadahadallada Somalilan oo aan u fududaynay adeegyadii uga xirnaa dowladda federaalka ah. waxaan soo celinay xiriiradii caalamiga ahaa. waxaan dejinnay siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaan collaysi, annagoo danta Soomaaliya ku raadinay iskaashi iyo diblomaasiyad. daadejintii awoodaha iyo maamulka federaalka ee aanu ku baahinay waddanka ayaa suurtogeliyey 49 sano kadib in aanu Soomaaliya ka hirgelinno doorasho dadban oo ka dhacday meelo badan oo kala duwan. anigoo ka dhabaynaya usaldhigidda siyaasadda xasiloon ayaan hirgeliyey doorasho hufan, daah furan, loo dhan yahay, loona siman yahay, oo la iiga guulaystay natiijadeediina aan aqbalay. shaqadii aanu ka qabannay qaran dhiska iyo haykalka dawliga ah waxaa ku yimiday dib u dhac. dalkuna wuxuu maanta marayaa siyaasad ahaan, amni ahaan, dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba meel ka liidata meeshii aan uga tegey. Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa iga haysa laxajeclo qoto dheer. anigoo intaan ka waaya aragnimo yar, ka khibrad yar, ayaan ka quusan waayay Soomaaliya. maanta oo aan ahay oday Soomaaliyeed oo xog ogaal ah, sideen uga quusan karaa? si aan uga kabanno dib u dhaca, u soo celinno isku duubnida ummadda iyo xasiloonida dalka, waxaa loo baahan yahay siyaasad, dulqaad, dimuqraadiyad iyo damqasho leh oo horseeda dhammaystirka dhismaha qarannimadeenna. Soomaaliyey, waxaan ahay murashax u taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2020. sidaas darteed waxaan weydiisanayaa ummadda Soomaaliyeed inay isiiyaan kalsoonidooda si aan u hogaamiyo dalka mar kale. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.